waxaad sawirataa gabadhii muslimadda ahayd ee odaygeedii muranku dhex maray ee uu dihaaray ee ilaahay u ashtakootay ee ilaahay ashtakadeedii ka soo jawaabay gabadhaasi qur-aanka markay akhriyayso siday u akhriyaysa iyaduu ku soo degay iyadaa ashtakada samaysay dabeetana ilaahay iyadu qadiyadeedii ka warramay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir gabadhaas maxay dareemaysaa marka qad samic iyadoo akhriyayso ay salaad ku tukanayso wuu kala gedisay adiga in lagaaga sheekeeyo gabadh bay ninkeedii isqabteen dabeetana qur-aan baa ku soo degay iyo inay taagan tahay tii qur-aanku ku soo dego iyadoo akhriyayso oo iyadu ilaahay u ashtakootay oo dabeetana ashtakadeedii ilaahay aqbalay waxaa la yidhahdaa cumar bin alkhataab oo iyo ciidan soconaya meel soo maray dabeetana islaam buu ku soo baxay islaantu wuu isla taagay markaasay wax u sheegtay warkiisii buu ayuu dhegaystay warkeedii markaasay ku yidhaahdeen xabasta amiir ulmu'miniin bay leehay xabasta annaasa calaa haadihi alcajuusa dadkii ma habartan baad u joojisay yacni dadkii waxay necbaysteen dadkii dhammeeye soconaya islaan la hadalkeeda inuu cumar isu taagay cumar baa wuxuu ku yidhi waylak maga ogti intani tay tahay markaasaa la yidhi maya markaasuu yidhi waa tii ilaahay fawqa sabci samaawaat ashtakadeeda ka aqbalay waa khawlata bintu thaclab buu leeyahy waa gabadhay ku soo degtay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ay ku soo degtay ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahy hadday ilaa iyo caawa ay tidhaahda taagnow salaad waxaan ahayn ugama dhaqaaqayna waan u taagnaan lahaa buu leeyahy yacni markaynu qur-aanka mafhuumka markaynu u dhigno qof walba ilaan qur-aankani meel cidlaa kuma soo degayna raggan iyo dumarkan meesha joogu ku soo degay iyaga ama lagu saxayay ama lagu tawjiihinayay ama wax loogu tilmaamayay yasaluunaka can alanfaali qul alanfaalu la waa kuwan taagan idan qur-aankaad adigu akhriyayso iyo ragguu ku soo degayee taagnaaye iyaga ilaahay ka warramayay isku dhadhan noqon maysaan isku sina u dareemi maysaan arrinka saddexaad ee uu sheekhaasi tilmaamaya waxa weeyaan النبي عليه الصلاة والسلام غيب بدن إيا وح معجزات إيا كمو كورما إنك بعد السنة دير علماء الحديث كساروريان مركو صامرو كتب صامرو عين كاثرين سو قاري وركاسين إنكو مقالة لكن إياو ويتاقنايين وهي علماء دو إلى أما علماء دو بانكاك حيو نبي الله موسى عليه السلام oo ilaahay u kacay subxaana wa tacaala oo ilaahay la hadlayo ayaa tolkii waxay caabudeen dibi dabeetana waxaa la soo siiyey kitaab alwaax ku qoran waxaa loo sheegoo ilaahay uga warramay nebi muuse dadkii inay caabudeen maxay dibi inay caabudeen wuu cadhoodo wuu soo noqday markuu laakiin arkay waaqicii nimankii muuminiinta uu ka tegay oo dib caabudaya markuu arkay looxaantii ilaahay wax ugu soo qoray uu situu dhulka ku dhuftay markaasay kala jabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam tacliiqiye wuxuu yidhi laysa alkhabaru kalmucaayana buu nebigu yidhi warku aragtida la mid maaha buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nebi muuse war baa loo sheegay dadkii way caabudeen dibi looxaantiisa uu iska sitay markaa ma jebinin laakiin markuu isa soo taagay indhaha saaray iyagoo hortiisa dibi ku caabudaya cadhag daraaddeed markaasuu looxii ka jabay markaasuu nebigu leeyahy laysa alkhabaru kalmucaayana maxaan uga dan leenay markaa mucjisaadka laynooga warramayo waxu dhan way taagnaayeen innaga waxaa laynoo sheegay inay quraysha iska hor yimaadeen ibagoo kaasoo dayaxa la kala dilaacay ka warran dayaxoo laba noqday ninkii taagnaa dayaxoo laba dhambala isagu labadiisa indhood ku arkayay ka warran ninkii taagnaa isagoo beershiyo boqorkii joogay uu la hadlay caamilkiisii yeman jooga oo uu ku yidhi ninbaa gobolladaada ka soo baxay aniga waraaqii soo diray waxaasi ma dhici kartee ii keen ee labada nin soo diray ee labadii nin nebi maxamed u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo raba inay u sheegaan boqorkii kisra ku doonaya eena raac dabeetana wuxuu yidhi bal noqdo oo ii kaalaya aroorta way ku soo noqdeen markay subaxuu u yimaadeen buu wuxuu ku yidhi kii idin soo diray ku noqda oo waxaa u sheegtaan inna rabbii qad qatala rabbahu leyla rabbigay inuu rabbigiisii xalay dilay
kisrahay kulahaa ka yaman la soo hadlay yidhi waxaad kii yamaneed u sheegtaa xalaydan aan joogno aniga rabbigay inuu isaga rabbigiisii dilay boqorkii kisra nafsi leyla baa la dilay oo kisra dhintay ka warran ninka saxaabigee joogay ama saxaabada arkaysay nebi maxamed oo khudbadaynayo geed dhinaciisa taagani ooyayo geedku ka hor khudbadayn jiray waagii hore intaan loo samaynin mimbarka oo ka dhinac ooyayo ay maqlayaan dadku xaniin iljidic dhammaantood ay maqlayaan ka warran nebiga calayhi salaatu wasalaam ay dhex taagnaayeen oo intay biyo waayaan gacantiisa madibad yar u geliya weel yar biyaa gacanta u geliya oo dabeetana ay arkayaan farihiisoo biyo ka dareerayaan oo ku weysaysanayaan 80 nin baa ka weysaysanaya mararka qaarkood 300 oo nin baa ka cabbay ama ka weysays ka warran yacni nimanka soo taagna waxaas nimanka soo taagna inay jibriil arkaan intuu nebiga u yimi oo su'aalo weydiiyey oo caynkan oo ay yidhaahdeen nin aanan hore u arki jirin oo caynkaasaan markuu baxay uu nebigu ku yidhi ma garanaysaan kan idinka tegey ay yidhaahdeen maya uu yidhi jibriiloo diinta idin baraya buu ahaa idan saxaabadaas dadka waxay kaga gedisnaayeen iyagu diintan bay la noolaayeen qaarkood iyagoo dhulka kor marayaa la yidhi jannadaad gelaysaa dunidani intay cidhiidhi ku noqonaysaa ninka og inuu janno ku sii socda haddaad hubto caawa marka naftu kaa baxdo cirkan iyo dhulkan meel ka weyn inaad helayso tambariiskeedu mii kuuba dhadhami lahaa ma qiimo kula leeyahy ragga iyagoo halkan taagtaagan la yidhi jannaa leedihin jannaa gelaysaan oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la jooga idan ayuha alaxibba wuxuu sheekhaasi tilmaamaya uu leeyahay dadka kani waxay ahayn fac ilaahay doortay waxay ahaayeen fac qur-aanka la noolaaday iyo soo degistiisii waxay ahaayeen buu leeyahay fac dee alliya rasuulkiisu ka warrameen inna khayrakum qarnii buu nebi maxamed leeyahay dadba waxa u khayr badan qarnigayga kan uma aladiina yaluunahum waxau nebigu tilmaamaya laa tasubuu asxaabi war saxaabadayda waxa ka sheegina war saxaabadayda ha maagina ilaahay baan ku dhaartee buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam buurta uxudoo dahaba in leeg haddaad bixisaan mudkood waa 2 sacab mud uu midkood bixiyey ama nisfu mud uu bixiyey gaadhi maysaan waayo nisfu mudkaasi diintan dhan baa ku kacday adigu haddaad maanta buur dahaba bixiso maxaad beddelaysaa diintan dhan ee ilaa qiyaamu saaca taagnaan doontaa mud iyo nusmud ay nimankani bixiyeen bay ku taagantay marka laga yimaado dhiiggoodii iyo naftoodii hantidooday ku taagantay hantidooduna waa maxay waxay ahaayeen mud iyo nusmud hadday qarniga noolaan lahaayeen waxaynu odhan lahayn waa dad caydhoo meel degane waxa loo ururiyaynu inagoo odhan lahayn markaad noloshooda la sifeeyo siday ahayd saa daraaddeed jiilkaasi jiil mudan buu ahaa ilaahayna markuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas iyagaa marka hore lala hadlaya iyagaa kow ka ah waxaa kuugu filan ilaahay qur-aanka ku leeyahay والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كوي صهر مري الرئي مهاجرين يا أنصار هيا وحي الراعي إلهي برا لك النقضي بالليل يقول الله يرى لك يهين جنة لو دياري با إلهي هو مرخاتك عيا أي كواريا كور مركا إلهي قرآن كور ما يقال لي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أيها الأحبة وحلنا جيل كاس وجيل إلهي دورتي ضد كان كمضا مدينهان وقولي كمدين ما التاريخ ده بني آدم كاقري سينا يهين ضد كجدسا نوعيات كي الدنيا ده صامرة يوردن waxbaan ka tilmaami haddaba islaamnimadu ma iyagoo qudhay ku xidhnayd
macnaheed ma wuxuu yahay ninkaan nebi maxamed aragay islaam ma taagi karayo ama diintu ma dhaqmayso maya halkay gaadheen un baan la gaadhi karin laakiin waa musul waa tilmaam la adeegsanayo oo qofku uu rabo inuu gaadho waa laga yaabaa fardi iyo laba iyo saddex gaadha inaad aragto laakiin bulshadii tiro leeg oo tayo leeg iyadu ma jirayso laakiin ilaahay nicmadiisu qof kii dadaalaa waa gaadhi karaa waxyaabaha qaarkood